بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم وارن نين أن ورك هذا قليل مؤها ما نين أن ورن هذا قليل ده ورك هذا مقله باكستان وفد جوجي إيرانيين تهايا وحال مرسوق جاري إذا ماذا إيران أو دقنين ولا واللي بدقنين كل صدق دقيقة هستان مريكان أو معيك هستان مركب كوضا حدرتان هي أن قوسين ربنا هاسئلاليان المهم أرنتها halkay ku dambeysay iyo faafahinteeda aan idin wada number 1 waxaan kaloo ka hadli doonaa dafcan hadalhayn badan ayaa waxay ka imaanaysaa shalay kulankii ay yeesheen madaxweynaha China iyo hogaamiyaha mucaaradka ee Taiwan arintaasi ila badan lagu hayaa waxa saameynteeda ay inta u leegtaan waan ka hadlaynaa waxaan se ku bilaabaynaa kaarka Iran maanta ay ciyaarayso oo ay haysato waxay leeyihiin falanqayaasha Iran shalato hal xaba kaarma inaan haysan kulli waxay ahaayeen waxay haysatay in ay rabto nabad inay rabto in dagaal oonan dhicin inaan la weerarin macnaha kaarka ugu weyn ay haysatay haba yaraatee ma jirin wax macnaha kaar la dhaho wuxuu ahaa bas please nabadaan rabnaa intaas oo ahaa kaarna kaar lama dhihi karo cidda markaasi kaarka wadata waa qofta ama qofka ku dhahaya waxaas daadan sameeyay waxaan kugu sameeynaya iyo wixii la midka laakiin taqriiban 40 maalmood oo dagaal ah waxa ay Iran haysataa kaar aan caadi ahayn oo weyn oo miiska ay la soo fariisanaysa ayadoo murqo weyn waxay bal dhahan ay leeyihiin macnaha strong position ka ay maanta leedahay yani qaybta iyo sida ay maanta u awood badan tahay markay noqoto xagga negotiation ka wada hadalada waxay u dhowdahay in wax badan oo hadalada kamid la qaadan doono maxaa yeelay kaarka ay haysato waa kaarka Hormuz marinkaasi gacanteena ku jira yaa ka saari kara isku day hadda gurigayga agtiisa moogta marka wada itaalo adina xaafashanaad aad ka soo duulaysid mar walba ana ka wadanaya sida ahaataba almuhim Iran kaarkaasi haysataa waxa dhacay marka waxaan ku qabanaynaa arintaasi 30 daqiiqo ay Iran u qabatay markabka Mareykanka iyo wafdiga Pakistan u jooga ay u sheegtay macnaha marinkan marka Iran waa kaarka ciyaarayso Soomahan ayadana haysata hal mar markab weyn oo dagaal oo Mareykanka xeebta Fujairah ee Imaaraadka ka soo kacab inkastoo su'aal la isweydiina waxay ahayd sidee markabka halka uu ku yimid goorma oo dhaqsi badana eriyadaasi Fujairah maraakiib Mareykan ma joogin haday joogi lahayn Iran mar hore yani weerar lahayd almuhim ayamahan oo soo luuday soo dhutinay wana yimid ujeedada waxay ahayd waa maxay marka inta wada hadalkan uu socdo in Iran la qaado oo miirooyinka laga bixiyo eriyooyinkaasi markabkan waa markab ciidan markab weyn oo hubaysan laakiin qayb kamid waxyaalaha uu qabto waxa kamid ah in miirooyinka uu bixiyo معهد دار المستقيم للدراسات القرآنية ودكسي عالمي أونلاين أو كوجو غارسينيا هب أونلاين برشة دين الإسلام أديكو تشوجا غوريكا جوبتا هذا الشقة أديكا يلمها غيربا ودكسي مدة أدوكوبن أدكو حفتيسان برشة حفتين القرآن الكريم كنا برانيسان برشة أخرين يقرستي كذا لغة عربية أفك عربية تفسير القرآن الكريم أحاديث النبيين دعوينك أفكنا الصومالية يا برشة عقيدة السنة الإسلام يدور الله راعيني تاريخ ذي سيرة رسول كان محمد صلى الله عليه وسلم والي ودكسي أديك علم قادنيسو أديكا يلمها غيربا وأنا دكسي اللي فرن أفري لما تنقص عدد يتضمن مع الموضوع أسبوعا أديكا يا دورني حيلك وقت قاعد هليليسو هاتنسكدي وانقليم dhammaan duruustu ay kugu imanayso aaladaha kala duwan sida WhatsApp-ka, Telegram-ka, Zoom iyo waliba Google Meeting-ka wixii faahfaahin waxaad haatan wali weydiinaysaa telefoonada shaashada kaaga muuqda balateena waa dugsiga Daarul Mustaqim lidiraasat al-Qur'aaniyya sida barashada Qur'aanka Kariimka ee macna Qur'aan online iyo hab online kugu soo gaarsiinaya barashada Qur'aanka Kariimka cilmiga shariicada Islaamka goob kastoo dunida kaga joogto iyo waqti kastoo ay haysato hadii baan shaqo ku jirto iyo hadii aad gurigaaga joogto qana laha jinsi u gaaro dugsigan waxa wax ka dhiganaya caruur roole rag iyo dumar waa soo doonayeen bartaan barashada Qur'aanka Kariimka aqoonta kala duwan ee dugsigan lagu qaadanayo waxa kamid ah barashada Qur'aanka Kariimka akhrinta iyo qorista igada luqada carabiga iyo qaybaha shariicada Islaamka sida tafsiirka aqeedada Islaamka ahadiista nabigeena waliba fiqiga waxaana duruustu ay ku soo gaaraysaa aaladaha Telegram-ka Skype-ka waliba WhatsApp-ka waxaana ardayda daafaca dunida joogta loo soo diraya shahaadooyinkooda marka ay ka dhameystaan aqoonta kala duwan ee dugsigan hadaba hadii aad tahay waalid naxariis badan oo ubadkiisa la rabo inuu ku barbaariyo barashada Qur'aanka Kariimka wixii faahfaahin waxaad ka weydiinaysaa ciwaanada iyo telefoonada shaashada kaaga muuqda Mareykanka marka waxay ku dhawaaqeen u fiirsan ayaga isfashiliyay moogta waxay ku dhawaaqeen waxaan bixinaynaa oo aan wadnaa bixinta miinooyinka ay Iran ku aastay Hormuz Iran baraarug markaasi baraarugtay inkastoo dabcan ay arkaysa dhaqdhaqaaqa markabkaasi soo socodkii marka uu soo socday ee uu macnaha xeebta intuu ka soo baxay oo dhinaca ay Hormuz oo rabay inuu soo gudbo ay Iran la hadashay digniinaysiisay caadiyan way dhacdaa oo digniinta noocaas oo kala diyaaradaha la siiya maraakiibta la siiya normal gaadiidka la siiya war joog ha soo dhaqaaqin ha soo marin ma soo mari kartid istaag meeshaada laabo
gadaal u laabo kada amarkaasaan ku siinaynaa haddii iyo wixii la midka ayaa la dhahaa markabkan marka waa markab military ciidamo tiro badan ay saaran yihiin gantaale ay saaran yihiin maxaan ku dhahay intaas hub kala duwan ay saaran yihiin iiraaniinta markay ku celceliyeen markabkii marka wuxuu isku dayay inuu soo socdo oonan istaagin okay waa markab iskuba haddii awood badan leh xaafadan guuraysa ah iiraan marka waxay markiiba dhambaal u dirtay wafdigeeda fadhiya macnaha jooga dheh Pakistan oo Mareykanka hadda la shiraaya waxay ku tiri 30 daqiiqo haystaan 30 daqiiqo ayay haystaan Mareykanka in ay markabkooda celiyaan only 30 minutes haddii 30 daqiiqo u dhamaado annaga markabkaasi waan ku dhufanaynaa bal waan burburinaynaa asaga dhan wayba fursad ay banoo tahay oo kale saas oo kale wafdigii jawaabta soo bixiyay lama sheegin dabcan laakiin markiiba lama sheegin aan ujeedaa laakiin markiiba marka ay ku adkaysteen oo ay waliba taqriiban sida leeyahay yani digniin adiga gantaala ah ay tuureen iiraaniyiinta kadib markabkii meeshuu istaagay inuu dib u laabtay ayaa la sheegaya laakiin arrin jirta ma ogtahay ninka hadal badan muxuu dhaxalka aabahada ku siyaasaas oo kale Mareykanka hadalay afkooda dheer maxay dhaheen mataqaanaa horta qayb kamid ah miinooyinkiina waan soo saarnay oo waan saarnay markabkeenana si caadi oo smooth ah ayuu u maray Mareykanka Hormuz waa ku baashaalnay macnaha inta ka soo gal halkaas ka baxan camal iiraaniintu waxay leeyihiin wax ka jiro ma lahan ma aysan marin waa beentooda markabkaasi waan la hadalnay digniin badan siinay حتى يعني جودي أو صدق دخان سيني صدق كده دقيقة سيدي أن أو معناها تلاقلنا أو سمية ولا عبطي أخبارت أودم بسوا إنتاسي مركب محاد ماشي كده عاي أرين لا بقى مدو حيت هاي مريكان كا إسرائيل أرين أي خنان وهذا هذا الصعوبة أما حب جوجنا على قال كذا واسك بروي سنة وحي شيء اللي سمين جل النورمال كها أما النورمال كان هنا عفوا أي لغو بلا بقى يعني ولا لغو ده معناها إن ده هذا يسوجيدان إن لغو مرسين كرو كذا إسرائيل إن بدنا يسميها حب جوجنا علي دوغانتي إسكا وضعتها حب جوجنا علي دلكي وضعتها أو معناها شرقولك يوحي لميتكها ساسي إن بدنا نسميها مريكا كانت هذا على الصعوبة إن حب جوجين لغو جرا الأوجي هاي واي مركب دقال أو هرمز الأوجي هاي حالات ده أو أسو قرايا ولبا مينان بحينينا maxay macnaha tahay arintaasi almuhim iiraaniintu way u digeen arintaasi marka koo waxay ahayd in lagu barooysto Iiraan mid kale ay u sameeyaan waxay tahay yani dabcan in miinooyin hadii jiraan ay bixiyaan ilaa markabkan uu qalbaysan yahay teknolojiyada ugu dambaysa ku xiran marka in Iiraan la sii boobsiyo oo macnaha meeshaasi la baneysto oo miinooyinka laga soo saaro marka intaba ma aynan dhicin marabtaa inaad noqoto qof quraanka si sax ah u akhriya isla markaana faham qoto dheer u leh diintiisa haddii jawaabtu haa tahay haddeer ku soo biir markas alwaalideyn online waa markas aad ka baran karto quraanka kariimka hingaada carabiga duruus islaamiya oo kala duwan waxaad si qoto dheer u baran doontaa adkaarta axaadiista iyo weliba caqiidada waxaa kaloo aad ka heli kartaa markasa alwaalideyn online ijaasada sanadka ee quraanka kariimka macallimiin aqoon durugsan u leh khibrad ka badan 10 sano haddaba ka faa'iidayso jaaniskan oo ku soo biir maantaba markas alwaalideyn online oo bilow safarkaaga barashada quraanka kariimka wixii macluumaad dheeraad kala xidhiid lambarada shaashada kaaga muuqda arinta kale aan ku xijinayna waxay tahay Trump haday tweet ay soo qoray wuxuu taagan yahay macnaha wax badan oo taangiye ah oo aad u waaweyn oo kuwa adduunka ugu waaweyn ah ayaa hadda noo soo socda waxaynu u soo socdaan dhinaceena say u qaataan saliideena ama shidaalkeena oo khatarta macaanka ah iyo gaaskeena oo aanan adduunka kuwaas oo kala jirin waxaan leenahay war soo dhaqsada kaliya qaata diyaar idinna anaga ila ganacsano anaga shidaalka iyo gaaska adduunka ugu weyn ugu quality fiican sida darteeda arintan macnaha waa arin aad faa'iido idin ah sida ugu dhaqsiyan soo laabta quick turn round sameeya noo imaada waxa lagu tilmaamay arintan in ay tahay waali xaaladda Mareykanka oo adduunka galiyay iyo hadalka uu qoraayo Mareykanka yani Trump laba kaafi kala dheeri yani muxuu ka hadlayaa oo kale yani tweet kan in badan falanqeeyaashu waxay ku tilmaameen yani ninkan xaaladiisa ma sahlan camal yani hal baar oo kale the independent qoraalo oo maqaalo soo qoray oo ah Trump caafimaadkiisa inay tahay in la fiiriyo Iiraaniinta dhinaca kale haddaan u laabano waxay leeyihiin goodwill but not trust يعني waxaan ku soconaa niyad wanaag ayaan shirkan ku galaynaa laakiin aaminaad haba yaraatay waa zero lagama yaa inaan aamino Mareykankiina khiyaano inta soo mar laakiin wada hadalka uu socda hadda Pakistan akhbaarta ugu dambeysay soo dhacaysa waxay sheegaysaa in ay wada hadalka toos face to face u soo fariisanayaan maxay la khilaaf jiray maanta oo dhan waxa jiray in ay qoraal ku kala jireen loo kala dabqaadayay laakiin hadda xaaladda waxay ku soo biishoonaysaa inay si toos isu arkaan ugu dambeyn
arrintan kulankii shalay dhacay ee Xi Jinping madaxweynaha China iyo hogaamiyaha mucaaradka ee Taiwan Shang Liwen ayaa wuxuu dabcan dhaliyay hadal badan. Taiwan iyo China haaday u kala fog yihiin. nacam mucaaradka xogaa waxay u janjeeraan Chinese-ka macnaha dhinacan kale qoladan kale ee hadda xukunka haysatan muxaafiriintana Mareykanka iyo European-ka waxa cadaadis oo ka socda hadda fursadna loo arka ay Chinese ku arkaan Mareykanka intuu saa u mashquulsan yahay Taiwan in la boobsiyo in la kiciyo gudaha qoftaana la wacay waxa la yiri kaalino imo sida akhbaaradka ay soo warinayaane si yani xukuumadan Mareykanka aadka u taageersan meesha looga saaro almuhim Mareykanka iyo China dagaal farsamaysan oo adduunka yani inta badan aan ka socon lana ogeyn oo biyo hoostooda ayaa ka dhex socda kulay arintaana meesha ku dambeyn doonto arki doona intii ugu dambeysay wayaan salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh sida barashada quraanka kariimka ee macna quraan online iyo hab online kugu soo gaarsiinaya barashada quraanka kariimka cilmiga shariicada islaamka goob kastoo dunida kaga joogto iyo waqti kastoo haysato hadii baan shaqo ku jirto iyo hadii aad gurigaaga joogto wana laha jinsi u gaaro dugsigan waxa wax ka dhiganaya caruur iyo roole rag iyo dumar waa soo doonaya inay bartaan barashada quraanka kariimka aqoonta kala duwan ee dugsigan lagu qaadanayo waxa kamid ah barashada quraanka kariimka akhrinta iyo qorista igada luqada carabiga iyo qaybaha shariicada islaamka sida tafsiirka aqeedada islaamka axaadiista nabigeena waliba fiqiga waxaana duruustu ay ku soo gaaraysaa aaladaha telegramka skype waliba whatsappka waxaana ardayda daafaha dunida joogta loo soo diraya shahaadooyinkooda marka ay ka dhameystaan aqoonta kala duwan ee dugsigan hadaba haddii aad tahay waalid naxariis badan oo ubadkiisa la raba inuu ku barbaariyo barashada quraanka kariimka wixii faahfaahin waxaad ka weydiinaysaa ciwaanada iyo teleefanada shaashada kaaga muuqda معهد الدار المستقيم للدراسات القرآنية ودكسي عالمي أونلاين oo kugu soo gaarsiinaya hab online barashada diinta islaamka adigoo jooga gurigaaga ee goobtaada shaqada adiga ilmahaaga yarba waa dugsi muddo aad u kooban aad ku xifteysaan barashada xifdinta quraanka kariimka kuna baranaysaan barashada akhrinta iyo qorista igada luqada carabiga afka carabiga tafsiirka quraanka kariimka axaadiista nabigeena ducooyinka afkina Soomaaliga iyo barashada caqiidada sana islaamka iyadoo loo raacinayo taariikhda iyo siiradii rasuulkeena Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wali waa dugsi aad ka cilmi qaadanayso adiga ilmahaaga yarba waana dugsi idin furan 24 saacadood iyo 7 maalmood oo usbuuca adiga ayaa dooranay xilliga iyo waqtiga aad haleelayso haatan iska diiwaan gali iyadoo dhammaan duruustu ay kugu imanayso aaladaha kala duwan sida WhatsAppka Telegramka Zoom iyo waliba Google Meetingka wixii faahfaahin waxaad haatan wali weydiinaysaa teleefanada shaashada kaaga muuqda balateena waa dugsiga Daarul Mustaqim lidiraasat alquraaniya ma rabtaa inaad noqoto qof quraanka si sax ah u akhriya isla markaana faham qoto dheer u leh diintiisa haddii jawaabtu haa tahay haddeer ku soo biir markas alwaalideyn online waa markas aad ka baran karto quraanka kariimka hingaada carabiga duruus islaamiya oo kala duwan waxaad si qoto dheer u baran doontaa adkaarta axaadiista iyo waliba caqiidada waxaa kaloo aad ka heli kartaa markas alwaalideyn online ijaasada sanadka ee quraanka kariimka macallimiin aqoon durugsan u leh khibrad ka badan 10 sano haddaba ka faa'iidayso jaaniskan oo ku soo biir maantaba markas alwaalideyn online oo bilow safarkaaga barashada quraanka kariimka wixii macluumaad dheeraada kala xidhiidh lambarada shaashada kaaga muuqda ma rabtaa inaad barato sida lacag xalaal ah looga sameeyo online ku soo biir dulmidi.com oo hel koorsooyin faahfaahsan oo kaa caawinaya inaad horumariso xirfadahaaga waxaan hadda u fududeynay dadkeena inay lacag ka sameeyaan internetka dulmidi.com waxay bilowday barnaamijka affiliate-ka halkaasoo aad ku kasban karto ilaa 30% commission adiga oo dadka kale u gudbinaya koorsooyinkeena ma jiro wax maalgelin ah kaliya iska diiwaangeli hel linkaaga gaarka ah si aad u bilowdo lacag samaynta ka mid noqo kuwa lacagta xalaasha ah ka sameeya internetka haddii aad u baahan tahay caawinaad nala soo xiriir lambarka ka muuqda shaashada qoraal ahaan ama cod ahaan hana soo wicin booqo dulmidi.com oo bilow lacag samaynta maanta